cabdulqaadir nuur xuseen maax oo ah cilmi baare taariikhda afka iyo dhaqanka soomaalida ayaa in ka badan 10 eray oo loo yaqaano midabka madow inoo sheegaya caawa. maax mar kale soo dhawow. caashay aad iyo aad baad u mahadsan tahay. af soomaaliga mararka qaarkood sidaad u baarayso ood kolba gobol iyo u eegayso dadka dhaqankooda iyo hadalkooda iyo afkii iyo siaad u eegayso yaa waxaad runtii aad dul istaagaysaa ereyada qaarkood oo ku tusaya hodannimada afka soomaaliga uu leeyahy. bal tusaale ahaan iyadoo weliba sida araamisana qaar badan ay maqan yihiin inta anigu baaridaan ku helay ereyga madoobe magac weliba magac bay ku wada imaanayaan. magac keliya mooye wixii kale xitaa si kale u odhan mayno. magac qof loo bixiyey baan ku odhanaynaa oo madowga dartiis loogu bixiyey. madowga dartii loogu bixiyo magac keliya uma tirinaynaa. waa gartay. ayay soomaalidu mixnii markaad eegto afku hodan siduu u yahay yaa waxaa ka mid ah haybe waa madow, dhuxul waa madow, maygaad waa madow, shiil waa madow, uule waa madow, hurre waa madow, tuke waa madow, yusur waa madow, gadiid waa madow, dacar waa madow, sugulle waa madow, meecaad waa madow. intaa oo magaca waa 12 magac marka madoobe lagu darana waa 13 magac oo dad loo bixiyey. dhammaantoodna waxay tilmaamayaan midabka madowga qofka midabkiisa. laakiin maaha waxaad ka tagtay kuulow borow kuwaas ka tagtay. waa runta weliba gobolada aalka jubbaland la dhihi jiray borow baa loo yaqaan madowga. haye iyo kuul iyadana way jirtaa. waa runta meelaha qaar ba waxaa laga yaaba xitaa jubbooyinka in meelaha qaarkood magaalka laga yidhaahdo magaalo oo kale gabar marka loo bixinayo magaalo inuu magaca madow yahay isaguna. waaw marka waxaad leedahay afka soomaaliga waaban loo fiirsane kelmadiiba 12 bay noqon kartaa. aad iyo aad ereyga hadda weliba waxaan isleeyahay waa intaan anigu ogaaday inta aanan ogaa ee kale dhaqanka iyo afka iyo deegaanada kale ay kusii kala duwan yihiin ayaan aaminsanay keliya inuu intaa aad uga badan yahay.